degmada Shangani waa degmo ka tirsan gobolka Banaadir waxayna leedahay astaamo muujinaya inay tahay degmo taariikh weyn ugu fadhisa shacabka Soomaaliyeed waxayna dhisan tahay 1100 sano waana degmo saldhig u ahayd faafinta diinta Islaamka waxa ugu badanayd ku dhex arkaysa degmada waa masaajido iyo daarada dheer oo qadiimi ah barisamaadkii degmada Shangani waxay ka koobneyd 3 waaxood oo kala ahaa Jabuuti, Hawd iyo Mooyaale iyadoo markii dambe lagu kordhiyay waaxda midnimo waxaana degmadu jaar la tahay degmooyinka Xamarweyne, Boondheere, Cabdilcasiis iyo Kaaraan. Shangani waxay ahayd halka ay deganayeen safaaradaha wadamada Mareykanka, Faransiiska, Yemen, Itoobiya. Waxay il dhaqaale oo muuqato u ahaayeen degmada Shangani. Waxay xarun u ahayd dhismayaal badan oo dawladdii dhexe ku shaqeyn jirtay sida madbacadii qaranka, wakaaladii muuska, bangiga doolarka iyo xarumo loo soo dalxiis tagi jiray sida hoteeladii Jubba iyo Curubo. haddaba sidee ayuu u baxay magaca Shangani degmada Shangani waa degmo fac weyn oo taariikhi ah waxayna dhisan tahay 1100kii al aasasay degmada Shangani waa degmooyinka tan ugu qadiimsan waxyaalo badan ay ku caan tahay jiro magaca Shangani waxa loogu bixiyay degmadan waa degmo lagu dhisay guryaheeda caano ma la aqoonin shimeendo markii la dhisay Shangani waxay ugu baxday maadaama caano lagu dhisay wax cad tahay caanahan waa Shangani inay cad tahay Shangani loogu bixiyay ereyga Shangani wax cad waay marka sidaas awgeeda Shangani loo yiri taaganahay waa degmada Shangani masaajid ku yaalo leeyahay masaajidka Sheekh Ahmed oo dhisan in ka badan 400 sano masaajidkan markii la isku day la dayactiro waxa dhacday in gudaha hoose masaajidkan laga helay masaajid kale oo dhulka hoostiisa ah waxa inta badan dadka taariikhda yaqaan degmada Shangani ay sheegeen in masaajidkan taariikh inta ka sii badan uu jiro halka masaajidka haatan taaganahay uu jiro in ka badan 400 sano waxaan doonaynaa inaan gudaha u galno masaajidkan hoose si aan wax badan uga soo gaarno taariikhda gudaha ku duwan masaajidka masaajido jirsaday in ka badan 300 sano ayaa ku yaala degmada tirada guud ee masaajida ayaa ah 21 masjid halka 18 kamid ay yihiin kuwa la dhisay qarniyo ka hor isku dayo badan oo ay sameeyeen dadka deegaanka sidii loo dayactiri lahaa masaajidan ayaan suura gelin sabab la xiriira degmada oo leh taariikh daahsoon masaajidkan hadda aan taaganahay aan hoos u soo galnay godkan taariikhdii la dhisay lama sheegi karo ilaa hadda masaajidkan naga koreeya oo ilaa 300-400 sano dhisnaa sida hadda ay odayaashu sheegeen yaa 80meeyadii dib u habeenay dhismo lagu sameeyay asigoo masaajidkii la dhisayo tirirkiisii la qodayo yaa waxa lagu yimid dhismahan hadda aan dhex joogno waa la balaariyay waa la faayay waxa soo baxay masaajid waa la yaabay marka taariikhdiisa lama hayo waqtiga ah lama hayo inuu masaajid yahayna waa cadaatay sida aad arkaysiin waayo jooga Shangani ayaa rumaysan inay burburayaan raadadkii taariikhiga ahaa ee uu lahaa gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka qadiimiga ah waxa jira halaysyo cajiib ah oo isticmaalaan dadka degan Shangani gobolka Banaadir oo dhan aan badhaxnaabo Shangani iyo Xamarweyne xuduntiina waa ay xasuusta ilaa degmooyinkii u weyn tahay labadan degmo waa laba degmo oo qadiimi ah xuduntii gobolka Banaadir waa ay xasuusta aan ku suganahay xeebta Curubo ee degmada Shangani oo ah degmo aad iyo taariikh u ah waxaana ku yaala dhismaha Bateera oo u jeedaan dhismo aad iyo qadiim u ah ee lagu garto ee kamid ah calaamadaha lagu garto gobolka Banaadir sida calaamadaha lagu garto Paris, New York iyo waliba London waxa kale oo ku yaala dekadii qadiimiga ahayd ee gobolka Banaadir dekadaas oo markii hore looga soo guuray inay ku yaraatay wax soo saar ama maraakiibta timaada caasimadaha dunida waxay leeyihiin astaamo ka turjumaya qaabka bulshadoodu u abaabulan tahay Bateera ayaa ahayd xaruntii iskaashatooyinka kalluumaysiga waxayna ku dhinac taallay hotel Bateera oo labaduba kaabiga ku haya dekadii hore ee Xamar Shangani waa goob taariikhi ah ee madxafka qaranka ku yaalay oo Sayid Barqash waxa ku yaala turbiinka ee dekada hore duqda ahaa turbiinka waxa ku yaala bangiga ganacsiga waxa ku yaala hotel Curuba hotel Jubba wasaaradaha dalka oo dhan badankiisa Shangani ku yaala safaaradaha sidoo kale Shangani ku yaalin iyagana safaarada badan ku yaal Itoobiya ku taalo Faransiiska ku taalo Yemen ku taalo maxaa safaarada Mareykanka si ku meel gaar ahaan guri ugu deganeed Shangani dawladda hoose ku taalo Nishibiyo qaybta guud ku taalo Shangani waxa ku taalo xarunta dad wadooyinka ilaalinta wadooyinka traffico Shangani ku taala Shangani meel dawladda
aad ugu soo dhaweysay caasimadda magaalada Muqdisho ee ahayd Shangani. booqasho ayaan ku tagay gurigii uu ku soo degay Christopher Colombo oo ahaa badmaax u dhashay waddanka Talyaaniga kaasoo doontii waday ku soo xiratay degmada Shangani. tan ayaa xoojinaysa inay jiraan taariikh aysan ka warqabin dad badan. Shangani waa meel aan la soo koobi karin xilliga gumeysiga meeshuu ku soo degay way 1969 calanka Soomaaliya wadadana lagu saaray kooga Luulyo. wadada lagu saaray waa kooga Luulyo u baxday wadada la kooga Luulyo ku taalo calanka 69 lagu saaray. odayaasha Shangani oo leh golo odayaal dhaqameed ayaa isku howlay ilaalinta astaamaha qadiimiga ah iyo taariikhda ku dugan degmada. hawshan aan qabano waxa kamid ah barsimbiga degmada ayaa horta la shaqeynaa. degmada markii qof u tago oo dhaho guriga ana iska leh inay gudoomiyaha ama waaxda kan ka socdo oo dhihin gurigiisu waa inuu la soo xiriiraa. degmada waa inay warqad soo qortaa oo tiraa gurigaas meeshaas ku yaal waaxdaas ku yaal laantaas ku taal hebel ayaa soo sheegtay ma leeyahay ama ma laho. dhaqanka oo kamid ah waxyaabaha soo jireenka reer Shangani ayaa weli ka muuqda daayarta haatan soo koraysa waxayna gacan weyn ka geystay dib u soo celinta fanka maamulka degmada. Shangani waxaa ka muuqda burbur uu geystay dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay. degmada ayaa u muuqata mid ka soo kabanaysa waxayna haatan leedahay xarumo caafimaad iyadoo sidoo kale dib loo dayactiray iskoolkii uu degmadu lahaay xilligii hore ee la oran jiray bartamaha waxaana haatan dhigta caruur daayar ah. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog TV, Muqdisho.